ismaqal iyo daawasho wanaagsan oo markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawo doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland oo degdeg loo dhaariyay Somaliland oo gacanta ku dhigtay maleeshiyaadkii dadka ku laayay ceel afweyne musharaxiinta mucaaradka Jubbaland oo soo saaray liis xildhibaano madaxweyne Muuse Biixi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Sacuudiga Imaaraadka oo taageertay go'aanka India ee muslimiinta Kashmir lagu ciqaabayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawo doontaan hadduu ay beedmo markani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay guddiga doorashada ayaa dhawaan magacaabay musharaxiinta ka soo horjeeda madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dhankooda soo saaray liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Jubbaland musharaxiintani oo isbedel doonka ah oo ka hor yimaad liiska uu xalay shaaciyay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka ee uu horay u magacaabay Axmed Madoobe ayaa soo saaray liis kale oo xildhibaano ah liiskani ayaa gaaraya ilaa iyo 75 mudane halka midkii lagu dhawaaqay xalay uu 73 xubnood sidoo kale liiska ayaa waxaa ka muuqda magacyada iyo beelaha ay ka soo jeedaan xildhibaanada cusub arintani ayaa sii hurinaysa khilaafka ka jira doorashada la filayo inay bishan lagu qabto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose lama oga sida ay wax noqon doonaan balse sanadkani ayaa waxaa jahawareer xoogani ka jira doorashada Jubbaland madaxweynaha maamulka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ayaa xalay kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Minna ee dalka boqortooyada Saudi Arabia kulankani ayaa waxaa madaxweynaha Biixi ku helinayay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland mudane Maxamed Kaahin iyo xubno kale halka wasiirada ka socday xubnaha federaalka Soomaaliya ay kala ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka kalluumaysiga Cabdullaahi Bidhaan iyo wasiirka dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud mas'uuliyiintani oo Sacuudiga u jooga gudashada waajibaadka xajka ayaa waxay isla soo qaadeen xiriirka walaaltinimo ee labada dhinac wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebooka ayaa ka hadlay muhiimadda kulankaasi Xamuud ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inay la kulmaan madaxweynaha Somaliland sharaf ayay ahayd inaan xalay la qaxweyno madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne Biixi waa nin waaye arag ah yaqaanana qiimaha aynu isku leenahay aadna u qadariya ra'yiga walaaltinimo fadliga maalmaha barakeysan iyo dhulkani barakeysan awgiis allow kulankaasi ka yeel mid barakeysan ayuu yiri Cabdullaahi Xamuud kulankani ayaa ku soo aadaya iyada oo muddooyinkii dambe xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay Soomaaliya iyo Somaliland dowladda Imaaraadka ayaa taageertay dhigeeda ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo ku laalay qodobka 370 ee dastuurka dalkaasi ee u fasaxaya gobolka muslimiinta Kashmir inuu ismaamul u gaar ah noqdo safiirka u fadhiya Imaaraadka dalka Hindiya Ahmed Albanna ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid u horseedi doono gobolka Kashmir barwaaqo iyo nabad waarta isagoo sheegay in arrinkaasi tahay mid qusaysa arrimaha gudaha iyo dalkaasi oo ay tahay in la xalliyo waxaan rajaynayaa isbedel dhacay u horseedi doono horumar iyo cadaalad amniga iyo kalsoonida Kashmir isla markaana u dhiirigelin doono deganaan iyo amni ka dhaca gobolka sidaasi waxa uu wargeyska Gulf News u sheegay safiirka Imaaraadku wuxuu muddo dheer xiriir wanaagsan la lahaa wadamada Hindiya iyo Pakistan waxayna aad uga fogaan jireen in ay dhex galaan khilaafka iyo colaadda u dhaxayso labadaasi wadan ee ku hubeysan hubka nuclearka Imaaraadku wuxuu ka mid noqday 8 wadan ee muslim ah oo wadanka Shiinaha ku taageeray sida uu la dhaqmo muslimiinta Evros ee Shiinaha oo malaayiin ka mid ah lagu guray xabsiyo munaasabad lagu dhaarinayay xildhibaano cusub ee baarlamaanka Jubbaland kuwaasi oo 73 ka mid ah xalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta lagu dhaariyay munaasabad ka dhacday magaalada Kismaayo xafladda dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya odayaasha dhaqanka Jubbaland ee soo xulay xildhibaanada dhammaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubbaland ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada deegaanada Jubbaland xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxay goobta ku dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland
sida uu sheegay xildhibaan xasan cabdi oo ka mid ah golaha shacabka goobjoogna ka ahaa munaasabadda dhaarinta. Sheekh Cabdi Yuusuf Cali oo ah xildhibaanka ugu da'da weyn xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Jubbaland ayaa noqday gudoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamaanka labaad ee Jubbaland ilaa inta laga dooranayo guddoonka cusub ee baarlamaanka. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Jubbaland ayaa waxay maalmaha soo socda ay u gudagali doonaan doorashada guddoonkooda iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland ee 4 sano ee soo socota maamuli doona maamulka Jubbaland. ay ku soo kulmaan dhammaantood magaalada Kismaayo si ay u soo xulaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dawladda Jubbaland. odayaasha muddo 20 beri ah ayay haysteen oo ay ku mashquulsanaayeen arrintaas, kadibna waxay runtii ay keeneen wixii laga sugayay oo ahaa inay soo xulaan xubnihii u matali lahaa beelahooda baarlamaanka sida ku qoran xeerka ama habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa markii ay odayaasha ka soo dhammaatay runtii ay guddigu ka howlgaleen wejigii labaad diyaarinta xubnaha baarlamaanka, kaas oo ay runtii kala qayb galeen oo ay la joogeen odayaasha dhaqanku laftoodu. marka waxaan odhan karaa maanta caawa waxaan joognaa guul. waxa ay guul u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxay guul u tahay shacabka iyo ummadda reer Jubbaland. waxaan runtii aan ugu hambalyeeynaya guddiga sharafta leh juhdigaas faraha badan ee ay soo qabteen oo aan ku ammaanayo inay marxalad adag ay runtii hawlo badan ay soo mareen. maanta ama caawa waxa aan haysanaa oo aan runtii guddigu si officially ah uu rabaa inuu ugu dhawaaqo xubnihii baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland baarlamaanka labaad aan ka shaqeynayna waayahan. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka oo inoo akhrin doona haddii Ilaahay yiraahdo bayaanka iyo magacyadaba si ay aan ugu marino shacabka reer Jubbaland miidiyaha xildhibaanadooda cusub. tirada xildhibaanada hadda diyaarka ah ee caawa la shaacinayo waa 73 xildhibaan. guud ahaan xubnaha xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland waa 75. waxaa ka maqan oo aanan weli shaacinin 2 xubnood oo arrimo farsamo dib nooga dhacay. waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo inaan ayagana aan u shaacin doono si ay uga qayb galaan shaqooyinka u yaala baarlamaanka. arrintaas waa inta. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo runtii anigoo magaca guddiga ku hadlaaya xubnaha cusub fursadda u helay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan leeyahay hambalyo, shaqada culus ee sugaysana Ilaahay ha u fududeeyo. kusimaha madaxweynaha Soomaaliland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Salici oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah dableydii shalay dadka rayidka ah ku laayay degmada Ceel Afweyne oo ka tirsan gobolka Sool. Salici ayaa sheegay in sidoo kale ciidamadu ay ku raajoogaan maleeshiyaad kale oo ku lug lahaa falkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ehelada dadkaasi u diray tacsi waxa uuna u sheegay inay isdejiyaan. sidoo kale wuxuu ka dalbaday shacabka Ceel Afweyne in ay ka shaqeeyaan xoojinta nabadgelyada si looga hortago dhibaatooyinka ka jira halkaasi. waxaan ugu baaqayaa bulshada degmada Ceel Afweyne in ay xil iska saaraan adkeynta ammaanka. xukuumadda Soomaaliland marnaba ma aqbalayso dhiigga dadka ehelka ah ee maalin walba macno la'aanta lagu daadinayo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Salici. hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay 7 ruux ay ku jiraan haween lagu dilay degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sool.